والله ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliya maanta AMISOM waxay u baahan tahay ma jirto waayo ciidankii qaranka ay waa dhismay waagii AMISOM loo baahnaa hadda lama joogo waayo ciidanka hadda asaas ku filan oo dawladda Soomaaliya waa isku filan tahay inta badan howlgallada arkaysid ama furimaha hore dagaalka wax dagaalamayo waa ciidanka dawladda Soomaaliya maya ma taageersani sii socoshada iyo inay Soomaaliya ku sii sugnaadaan ciidamada midowga Afrika waxaan hadda ii muuqda Soomaaliya inay soo kabasho fiican sameynayso sidaas laajiligeedna la gaaray waqtigii amnigeena annaga aan sugan lahayn inay wadanka joogaan aad u taageersanahay inay joogaan ku taageersanahay sababtoo wadanka amnigiisa sugayaan soo shacabka amnigiisa sugayaan waa taageersanahay midowga Afrika heshiis kale macnaha in oo lala galo laakiin waxaan diidayaa in Ethiopia ay ku sii jirto meesha insha Allah in laga saaro rajeynaa howlgalka midowga Afrika inay sii wadaan horta waxa waay aniga ma taageersani sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay bisha September 2024 inay bixi doonaan midowga Afrika waa soo dhaweynaa maya ma taageersani inay wadanka ka baxaan xilligii loo qabtay uga baxaan ayaan taageersanahay anigu intaasoo 20 sano nala joogay waxaan ku yiri meel ay noo qabteen gobol ay qabteen maan arag howlgalka midowga Afrika inuu sii socdo يعني aniga ahaan ay fikrad ahaan ma taageersani sababtoo ah 10 sano ugu dambeysay waxaan aaminsanahay in hoos ku dhac u yimid midda kale oo ah aan u taageersanay waxa waaye ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay sameeyeen dadaallo xoog badan dib u dhis badan baa lagu sameeyay waxaan aaminsanahay xilliga la joogo waa xilliga ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen amniga dalka saasna aynan lacagta iyo qarashka ku baxayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la galiyo ma taageersani inta joogto waxaan ka jeclaa lahaa hadii maxaa la yiraahdaa caqabadaha iyo culeysyada jiro ay Soomaalidu ay daboosho inay naga tagaan midowga Afrika inay Soomaaliya sii joogaan iyo inay muddada loo sii kordhiyo midna anaga ma taageersan kan dhalinyaro ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka reer Muqdisho ahaan midna ma waqti taamka la soo gaaraan ugu culeysananka waqti ay soo gaareen ba abaan ugu culeysa waayo waxay noo qabtaan amniga noo sugin wax kale noo qaban waxay noo qaban shaabal culeysan markay wadooyinka xatay mar wadooyinka waa naga xiraan أنا في شاد لي أنا ما أنا كست جنباتك سيجوجان فايلي جلايان بقول بقاري لصدق بديجا ودودي كده حاجة قريبات لنا نقولشران مركب واحد ديه لاي دولة الصوماليات أي كان هنجرب قصيصة عيدا كائن الصوماليات أنا غفران أي كمشارف في عناص سيسة أنا أدلع سيسة تاسع ديه لاي أنا عيدا كميدو أفريقيا إني سيجوجان وطنك هذا وتاجر سنة sababtoo ah ciidanka midowga Afrika waxay wada ku joogaan nabad ilaalin kaliya ma ahan inay dagaalamaan nabad ilaalin waxay ilaaliyaan shacabka iyo dawladda kale ilaaliyaan maadaama 2024 amarayno si dhamaanaya sanadka maalin walba aniga inuu gaal korkeena oo canshuur oo ku cuno ama kontrakti oo ku cuno askariga AMISOM oo qaato $1,000 askariga ninka Soomaaligan oo qaato 200 farqi weyn ayaa u dhaxeeya wax walbana anaga ayaa qabsan karno waxa waa wiilasha qaranka Soomaaliyeed ayaa qaban karo ciidanka xoogana waa uu dhismaan leeyahay waa tiradii shalay lagu yaqaanine si laba jibaar waa uu ka sii badan yahay maantana waa isku filayaa ayaa leeyahay AMISOMne looma baahna ciidamada AMIS inay Soomaaliya ku sii sugnaadaan 2024 waxaan ku diidanahay uma jeedo wax qabad weyn oo hadda ay sameeyeen oo gudaha dalka ay ka fuliyeen marka laga yimaado in dakhli fara badan ay ku cunaan waxaan qayb ka nahay ciidamada suga amniga Soomaaliya sheekadaas gaaban ee ku tirkateenta marka laga yimaado wax kale oo ay faa'iido ah oo ay Soomaaliya u hayaan AMIS inay jirto ilma ah xilliga ciidamo lagu filo waa haysanaa oo wadanka difaaca oo Soomaaliyeed oo wadanka u dhashay ciidamada AMISOM wax allaale waxay noo qabtaan ma jirto waxaan la gooyahayna ma qabtaan halka aan bibrisha kaga cunaan ciidamada Soomaaliya maanta xiriyaha ku xareystan way xallin karaan amnigooda iyo Soomaaliya way badbaadin karaan sababta hadda wax danaba ma jiraan badanta ay maanta midowga Afrika ay u hayso Soomaaliya waxa noo qaban kara dhalinyarada reer Muqdisho reer Soomaaliya aan noo qaban karta ciidanka Soomaaliya hadii la tayeeyo oo la qabeeyo oo baahiyahooda gaarka la ogaado oo kooda dhintayna mushaarka loo sii wado kuwa naafadaana la ogaado way ku dhiiranayaan shacabka Soomaaliyeed inay ayagu amnigooda sugtaan cadawga iskala dagaalaan howlaha ay qabtaan midowga AMIS ay qabatana annaga qabsan karna dhalinyaradeena qaban karna ciidankeena noo qaban kara waxa aan u yiri dhibaatooyinka iyo saameynta maxaa la yiraahdaa
shacabka haysato iyo dhibaatooyinka haysato iyo dhibaatada amisom lagu tilmaamayo waxaa dhibaato badan midda Soomaalidu ay isku hayso dalkan anaka iskale magacaynu waa Soomaali ma taqaana shisheey iyo culays iyo ma taqaanina waxba loo qaban karin qof maanta markuu wax ku qabanayo markuu wax ku qabaa asna dan kugu wataa anaga wax dan kuma qabno asiga bisaan ugu qaba marka culayskiisana u dul qaadan leeyahay wadanka loo firaaqayo